فضل علمك وحكم ذا كوا مهم سن أنه إرث الأنبياء ودحلك النبي ده هدي عذو وحلا دحلا يو هدي شيء ولا دحلا يو وحقوق قال سن دحلك أنبياء إلهي سيدا درادت بنبي قوت المام صلى الله عليه وسلم أقويها كدين وعلماء الدين كأه إليهين ورثة الأنبياء أنبياء إلهي كوا دحلي marka rasuulku wuxuu tilmaamay inaan duuye laga dhaxlinayo xoolo laakiin diin laga dhaxlay marka qofka dhaxalka u qaalisan qaatay waa ka cilmiga anbiyada loo soo dhibay qaatay waana kaynu isku dhiiri gelinayno cilmigu waxa kamida fadligiisa annahu yabqa wal maal yafna cilmigu waa jiraa oo waxa uu noqdaa wax joogo jira oo qofka taariikhdiisana reeba laakiin maalku wuu iska dhamaadaa qofku isagoo nool iyo isagoo oo dhintay labadaba oo xoolo leh ayaa laga yaabaa inaan cidiba ogeyn tusaale waxaynu u soo qaadan karnaa asxaabigii la oran jiray Abu Hurayra waxa uu kamid ahaa fuqarada asxaabta kuwa aan waxba haysanin buu kamid ahaa waxa aynu ogsoonahay inuu mararka qaar kood gaajo daraadeed sidoo isaguba ka waramay ku dhici jiray dariiq marka cilmiga barihi dambe kolku ka waramayay iyadoo dadka qaar kood waqtiyadii dambe ay xaasideen oo ay yiraahdeen akthara Abu Hurayra warkii buu badiyay waxaan uu sheegayaa badana ayaa wuxuu cilmiga waxa aan anigu ku soo xasiliyay cuud kale iyo xoolo kale ma raadin jirine wax yar oo calooshayda galiyo marka idinkuna waa laga yaabaa inay iska shaqaysan jirteen aniguna calooshaydaas uma wax yar u cuni jiray waxa jiray qolo ahlu sufa la oran jiray oo asxaabtii markaan masaajidka agtiisa gali jiray ahaa waranna way sidan jireen ay cadawga kula dagaalamaan iyo hub kitaabka ilaahayna way faa'iideysan jireen ومنهم القراء وحنا كمدها لمنكي قرآن كآت كوي قاني النبي وعربته أو درات تضباطا كهاي الدلي سيدا درادات با وحيابها قفك أهرية تاريخ ذو وناكسن وريبية أي كوكي هاي علمه أرنت الصدحات وحويان علمه قفك وإلالية العلم يحرسه والمال تحرسه علمك أدوك إلالينيا حولها أضاء إلالينيا وأمر إسكام معروفه علمك السماوي أي عيبتك إلالينيا عبادة دونك برتابك إلالينيا أخلاق دونك حماتك إلالينيا إن إلهك قدوك إلالينيا مركو طبعا قفك كل رقم أيه لكن حوله وادق أركيه دوال لقوها وليه وحسابتي سيئو قفك حلك وإسكا صاريو aad bay u badanto waa ka habeenkii soo jeedaya si uu ilaaliyo arinta afraad uu cilmiga fadligiisa uu ku muuqanaya waxa weeye anna al-insana yatawassalu bihi ila an yakuna min ash-shuhada'i 'ala al-haqq ahlul ilmiga waxa kamida fadligooda iyo cilmigaba inuu lahay marxaati gashaday cid marxaati noqota dadka cid oo horeysan buu ilaahay ku daray subhanahu wa ta'ala qofka hadiya jeer ma cid marxaati laga dhigaana waa cid mudan weey oo maamuusan ilaahay baa wuxuu shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaa'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ilaahay iyo malaa'iktiisa iyo aqooyahanka diintu waxay marxaati ka yihiin ilaahay tawxiidkiisa iyo inuu ilaahay kali yahay cid labaysaana aanay jirin marka marxaatigii ilaahay iyo kii malaa'ikta yaa soo raacay aqooyahankii diinta soo raacay lama oran ulul maal dadka maalka leh ama lama oranin ulul amri wal mas'uuliyya madaxtinimadii lama sheegina ulul ilmi bulay marka kol hadii marxaatigoodii ilaahay uu raaciyay kiisi iyo kii malaa'ikta fadli way ugu filan tahayo daliil waxay u tahay qofka cilmiga samaawiga intuu barta ku dhaqmaya
qiimaha uu leeyahay waxaa ka mid a oo arrinta shanaada ana ahla alcilmi hum axadu sinfay wulaati اlamr aladiina amara allahu طaacatahum madaxtinimadu dadka madaxdaa ilaahay wuxuu qur'aanka inagu faray in la aqbalo oo la adeeco adiicu اllaha wa adiicu rasuula wa uli اlamri minkum ilaahay ka tala qaata oo rasuulkiisa ka tala qaata dadka madaxda ah ee hogaaminta ana ka tala qaata buu ilaahay culimada islaamku markay aayadda fasirayaan waxay ku fasiraan waa madaxda iyo culimada dadka markaa hoggaanka haya iyo dadka hogaaminaya siyaasad ahaan iyo dadka ruux ahaan dadka u hogaaminaya qiyaadada ruuxiga ah ee kelmadoodu dadka ay jahaynayso labadaasay ku fasireen culimada muslimiintu oo qolana waxay leeyihiin bayaankii iyo caddayntii xaqa xujo ahaan lagu caddaynayo waa culimada qolana waxay leeyihiin fulintii xaqa in la hirgeliyo oo la fuliyo fi اdaakhili wa fi اlkhaarij debadda iyo gudaha iyaguna taasay leeyihin marka laba kala maarmayo kala hadhaya ma aha sidaa daraaddeed baa dhaqanka khulafadeennii waa wanaagsanaa dhaqankoodu wuxuu ahaa markaa ay ummadda hogaaminayaan culimadaa ka ag dhowaan jiray walow dhallinyaraba ha ahaadeen siduu cabdilaahi bnu cabbaas sheegaya allaha ka raali noqdo wuxuu soo dhoweyn jiray buu idhi anigoo dhallinyaradii ka mid a ayuu cumar soo dhoweyn jiray iyo ragga xufaadda ah ee qur'aanka ilaahay xafidsan